Haweeneydan Gloria Aquino oo ah sarkaalka sare ee spaceship-kan ayaa waxay saragtay iyadoo joogta magaalo yar oo ka tirsan Ameerika sanadka 2019. Maadaama ay ku jirto dawladda, waxay qayb aad u weyn ka lahayd inay wax ka diyaariso sanad guurada 100aad ee magaalada calaamasaarkeeda, taasoo markan ay ku jirto in dib loo soo qoro mashiin la aasay 1959 oo ah mid waqtiga lagu xasuusanayo. Qaacidooyin hore ayaa ku wareegsanaa mashiinka. Qofna ma ogeen waxa godkaasi loogu riday ama sidoo kale waxa gudaheeda ku jira. Buugta taalo maktabadaha oo ku saabsan maalinkii la aasay ayaa aad u yaab badneyd sababtoo ah joornaalo iyo warqado ku saabsanaaba arrintaasi waa la wada gooyay waana laga saaray si in arrintaasoo dhan historyga laga qarinayo. Maalinkaasoo dhan waa la iska ilaawi lahaa, sanad guurada 100aadna si tartiib ayay ku dhaafi lahayd haddaysan ahaan lahayn tiim isbitaalka ka shaqeeya. Waxay nadiifinayeen qof dhintay alaabtiisa, markaasay waxay heleen album sawiro oo ku saabsan maalinkaasi. Sawirku waxay ka arkeen markaasi duqa magaalada iyo sidoo kale mudanayaashii ayagoo ay dhammaantoodii ag taagan yihiin mashiinkii ka hor intaan la aasin. Joornaal yariisoo ku dhex jira ayay waxay ka arkeen wixii gudaha ku jiray. Wuxuu ahaa saacad iyo sidoo kale baakad sigaara iyo maabka magaalada iyo waxyaabo iska dabiici oo waqtiga la isticmaali jiray. Laakiin hal shay oo meeshaas ku jira ayay ishoodu qabatay. Waxayna ahayd markaasi alwaax lagu qoray guumeys geesa leh oo markaasi ku dul wareeganaysa guri. Gabar meesha ka shaqaynaysa oo ah gabar asal ahaan meesha u dhalatay ayaa markay aragtay aad uga naxday. Markii ay degtay kadibna waxay u sheegtay inay arrintan nasiib xun keenayso, saas darteed meesha laga soo qaaday lagu xisho. Ninkii hadalkeeda muu maqalo inay waalantahay ayuu u maleeyay. Isla markiiba arrintii wuxuu u soo bandhigay Gloria, wuxuuna markaasi u sheegay inay ku soo daraan alaabta la soo bandhigi doono sanad guurada. Markaasi Gloria waxay arrintii la wadaagtay duqa magaalada ayadoo aad uga walwalsan arrintan, waxayna u sheegtay in sanad guurada la kansalo. Gudaha mashiinka waxa ku dhex jira ayaa isla markiiba dadka ku dhex faafay. Mid ka mid ah caaqilada qabiilka ayaa aad uga soo horjeeday sanad guurada. Laakiin duqa magaalada iyo kuwa diyaarinaya sanad guurada iyo badanaa dadka magaalada ku noolaa kulligood way ka soo horjeesteen hadalkiisa, diyaarintii ayayna sii wadeen. Markii habeene yar ka dhimanayeen sanad guuradii ayaa waxaa bilowday waxyaabo la yaab leh. Shilalkii gaariga ayaa aad ugu soo batay magaalada. Shilalkii shaqooyinkan way soo bateen, dadkuna waxay isdhaheen taa waxaa u sababa maadaama dadku ku mashquulsan yihiin diyaarintii. Laakiin dad badan ayaa waxay soo sheegeen inay arkaan nin aad u weyn oo markaasi cajuusa oo soo baxa isla markii ay qoraxdu dhacdo habeen kastaba. Madaxdii dhan waxay isku raaceen waxyaabahan dhacayo dhan markaasi inay isku wada xiran yihiin. Caaqilkii arrintaasi wuu ku raacay, wuxuuna markaasi u sheegay wax gacana inuusan ku lahayn, habeen iyo maalinna wuu uga digayay. Waxaana sii cadaanaysa marba marka kasii dambaysa in magaaladani ay noqonayso mid habaaran. Waxaa la qabtay kulan degdeg ah. Arrinta laga hadlayna waxay ahayd in la sii wado ama la joojiyo sanad guurada 100aad ama aan la soo qodin mashiinka. Markaasi wuxuu socday kulankaasi 7 saacadood. Arrintii ugu dambeysay oo ka soo baxdayna waxay ahayd in markaasi la iska sii wato sanad guurada maadaama ay doqonnimo noqon doonto in waxyaabo yaryar loo joojiyo. Gloria shaqadeedii way soo dhamaysatay, alaabteedana way soo qaadatay. Waxay rabtay guriga inay aado, laakiin waxay dareentay hawada oo isbedelaysa sidii inuu qof daawanayo oo kale. Markaasna way cabsatay, waxayna u dheeraysay dhinaca gaarigeeda. Inta ay gaariga waday, waxay bilowday inay nafsadeeda canaanato maadaama ay daciif ahayd oo sanad guurada joojin weysay. Waxay og tahay inay ixtiraam darro ku tahay qabiilka haddii la soo qodo mashiinka, balse aad ayay uga xumeed in markaasi sanad guuradan sii socoto. Waan joojin doonaa ayay markaasi nafsadeeda ballan ka qaaday iyadoo muraayadda eegayso. Markaas ayay ahayd markii ay dareentay oo garatay inaysan kaligeed gaariga ku jirin. Waxa weyn oo gaariga dhinaca dambe u fadhiya, maantoo dhan gaariga wuu kula jiray, ayadana hadda ayay aragtay. Isla markiina gaariga bareega ayay qabatay. Markaas ayay eegtay iyadoo neefsanaysa, waxayna weydiisay su'aasha ah, adiga yaa tahay? Markaas ayuu wuxuu ugu jawaabay wixii muhiim ma ahan. Waxa muhiimka ah waxay tahay inaad ku qasabtid inay dhacdo sanad guurada, sababtoo aad ayay u caawin doontaa jecelka dadka ah inta aad ogtahay in ka badan. Markaasi Gloria way yaabtay, waxayna tiri waxba ma fahmin. Markaas ayuu ku yiri wixii muhiim ma aha inaad wax fahantid, kaliya aad ogow waxa la soo qodi doono maalinkaasi inay cadaalad keeni doonto. Intaa kadib mar labaadkii ay eegtay wixii meesha kula jirayba isla markiiba uu baaba'ay.
Gloria bartaasay fadhiday ayadoo yaaban oo aamusan, markaasna wadnaheeda isku daysay inay dejiso kaasoo aad moodo inuu xabadkeeda ka soo bixi rabo. Ugu dambeyn way qanacday, waxayna qaadatay go'aanka ah inay hubin doonto inay sanad guuradan dhici doonto ayadoo ka baqaysa haddii la kansalo wixii dhici doona. Dhacdooyinka la yaab kale ayaa magaaladii kasii socday ilaa la gaarsiiyey heer dadkii jeelka ahaa ay la kulmeen cadaadis kasii daran intii hore, markaasi taas oo lagu daray iyo tii hore ay ka xumaayeen sanad guuradii, markaasi ku kaliftay inay ka tagaan magaalada muddo kooban. Ugu dambeyn maalinkii waa la gaaray, hal qof oo Cherokee iyo Indiana meesha ma joogin. Gloria way ka labalabeynaysay go'aanka ay qaadatay, balse waxay 100% hubtay in markaasi ninkii gaarigeeda soo fuulay oo wax sax ah u sheegay. Mashiinkii ayaa ugu dambeyn la soo saaray, kadibna waxaa la keenay banaanka iyadoo la tusayay qof walba oo yimid meesha. Dad aad u tiro badan ayaa markaasi wada fiirsanayay, ayagoo raba inay arkaan markii la furo waxa gudaha ugu jira. Markaasi cirkii wuxuu bilaabay inuu ismadoobeeyo daqiiqado ka hor intaan la furinba mashiinkii. Carigii dhan mugdi ayuu noqday. Duqii magaalada bahashi ayuu soo kor istaagay, markaasna wuxuu bilaabay si tartiib ah inuu daboolka uga qaado dadka hortooda. Iftiin aad u weyn oo aad u awood badan ayaa ka soo baxay bahashi, wuxuuna indhaha ka gubay qof kastoo nasiib darnaa oo markaasi meesha taagnaa. Waxayna bilowdeen dadkii inay gubtaan ayagoo dharkoodii iyo tintoodii xataa jirkoodii u baaba'ay. Aaladda la soo saaray maba ay ahaynba mashiinkii waqtiga gabigeedaba, waxay iyada weli ku aasnay dhulkii isla meeshii lagu aasay markii hore. Dadkii loo xilsaaray inay soo qodaan aaladda ayaa iyagoon ogeen waxay soo saareen mid ka mid ah boqolaalka aaladood ee nukliyeerka, kuwaasoo si doqonnimo loo qariyay isla markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Dib markii loogu soo laabtay spaceship-ka, Gloria indhaheedu waxay bilaabeen inay dhiigaan, markaasna robootyadii aad ayay ula yaabeen waxa ka dhex socda dhalada stasis-ka ee 19aad ee ay ku jirto.